القرآن ولو تعليه أولاد إلهي دتك سيو سعدي حنون كهنا جارسي وحلا سوكو بكرة ما أهن تلفون كذي ينقرأ نبايع قبتي ويلكي بنتات كودي ينوها ينو ويلكي إسبيتال كتشوجي هاي مقرنيو أو قبل التلفون كله هم بانيري سعدي وارد ما تميد ويالي. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل معنا ونكسن داود يقال من البادج تاني سيلي بعد ما غليسان فضلا تاود هاتي channel كنا كورس بتاعي سبسكرايب صار هديات هاي صحيح ما قبل إحنا ما كان بدنا نسيدا قروح هذا بدنا هذي بحرم تاعي برنامج كا أو كدوي برنامج هراء هل كان عن كسوق المجري حقيقة أنا مرغيسناي قبل صوماليات إن منها أنت جهد سوق لي والدين صوبرين تعليم صوبرين وقت بدنكم الحين حلي إن معناه مريه أي قصة إن يتدي ما آذان وحماه إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت نفله ما عن بدي من يسأل لكن وحامنا سيدا مقال كراع كاركيسين بقايا داسي أباسي وحي آد الأمور سنا إن قبضوا دي أنت سكول صار ما يسي وقت بدن يجود بدن كدي مركب بلا شقاء أيضا تقترض إن أيضا لا يمرس الدليل aad waxaan badan tahay waalid walbana ilmihiisa markuu xaalad ku jiro uu dareemi karaa bal muuqaalkan insha Allah bal si wada jir ah reaction u bixin doona bal la daawada hooyada iyo aabaha qiirada ka muuqatay iyo dhibaatada quraan oo loo jecelihay awlaad ilaahay dadka siiyo sacdi xanuun kayna gaarsiiyay wax la soo koobi karo ma ahan telefonkeeda yangaraa ninbaa iga qabtay wiilkii bantaadka waday inuu ahaa ينو ويلكي إسبيتال كتشوجي هاي مقرنيو أو قبل التلفون كله هم بانيري سعدي وارد ما تميد ويالي. سيدو أباي إنه شيء قبل الصواحد الحياة الشقة كدمنا وحلاش شيء إن مركو التلفون قبل يسوع عي اللي قوم هاي إن حيل الدم تلاقى بتلوي له اللي قبل هذا ويد متعلق ونحرسته وعلين أهد وحنا بنا وياه أهد معنا وحنا هاي dhibaatooyinka micnaha magaalada muqdisho ku soo badanayaan aad ay u sabateen waxaad moodaa in micnaha dhalintii ubax ahaa ee dalka soo dhalinayay markii micnaha la in micnaha miraha ay gurtaan maadaama qofkan uu wax soo bartay diintu uu garanayay shantii salaad uu tukanayay naxariis fara badan uu dareemayay mustaqbal hadda horjeed u lahaa in micnaha gacan ka xaqdaran ay disho inkastoo haddana ay jirto qof walba micnaha tiisi ay maalin meel ku egtaa nolosha qofka bini'aadanka ah معناه البوميل أي كوكتها قبل يوم معناه مال أي دمنا يتحسن ولقنا حتى لكن واحد يروح الله السجن ده عمل دق المشهد مركا الله ونحرس لك راسي أبان جودي السوق كلها مستقبل آدوين إن معناه قرب خوطه بل مخالك هاولي أنقذ صحنا ليست بالحياة آت أمور كذا سعدي عبد الكريم وحي هذا قبر بحرية وحي هذا قبر أنا هذا قصور بطولي وحي هذا قبر أنا نبكي إني يقفيدي intii markay kortay oon ku soo dhibtooday ximin weynaa ay go'day markay go'day kuma dhiman sariirteedii kuma dhiman hargab iyo karoone waxay u dhimatay nin ka gardaran oo dawladnimo sheeganaya oo baabuur tignikaa wata aase xaqdarraa wuxuu ugu dilay iyadoo socodkeeda ku jirto shaqadeeda soo gudatay waxaan ilaahay ka baryahayaa oon ilaahay weydiisanayaa in ilaahay ii soo ifiyo waxaan bulshada soomaaliyeed ka codsanayaa iyo intii taqaana ninkaas gabadhayda sida xaqdarradaa ku dilay inay ilaahay ugu dhowaadaan inay ii soo keenaan inay soo qabtaan inay soo sheegaan qofkii soo sheegay ilaahay baa ugu dhowaanaya aabahan yaa arkayseen wuxuu dhahay gabadhayda corona uma dhimanin iyo cudur kale tabo waxaa dilay uu dhahay qof micnaha dawladnimo sheeganaya ayaa dilay oo gacan ka xaqdaran ah dhibaatada arta u geystay wuxuu dhahay waxaan ilaahay subxaana wa tacaala uga baryayaa u dhahay dadka muslimiinta ah in micnaha qofka asaga inay aniga ii soo qabtaan inay ilaahay u dhowaadaan sababto ah waa qof daalim ah gabar micnaha masaakiin ah haddana dumar ah horjood ah laga yaabo inay cur tahay waalidkeeda baarro ahaa shaqaysanaysay markii wax soo baratay doonaysa in micnaha faamilka ay garab qabato sidoo aabaha halkiisa uu sheegay marka qofka noocaas oo kale taa in la qariimo wanaagsano dawladana waxaa arkay marar aad u fara badan in micnaha booliiska ay dadka leynayaan dhalin fara badan in la dilayo maalin dhexda ayay ahayd muuqaal halkan aan ku baahiyey ay leeyihiin
askari baa micnaha wadaa micnaha waxay noqotay jam si micnaha jamka oo wadada micnaha oo kala qaadma ay wuxuu ku fura xabad dad fara badan markaasaa wiil iyo gabar walaala ah hal mar dhinteen waan garanaynaa in dhibaatooyin aad fara badan dhanka booliiska loola kulmo siba Soomaaliya marka waxaan rabaa dhalinta Soomaaliyeed meel walba iga daawanayaan maqalkii muuqaalka soo gaaray codkan iyo muuqaalkii aan halkan ku baahinayo in micnaha muuqaalkan ay sheegarayaan si aabaha iyo hooyadaas masaakiinta ah ay cadaalad u helaan tan kaleeto waxaan halkan uga faa'iideysanayaa barnaamijkan in madaxda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan in micnaha ay wax ka qabtaan dadka micnaha masaakiinta ah dadka leenayo waa inay wax ka qabtaan qofka noocaas oo kale taa ma istaahilo in micnaha responsibility micnaha qori lagu dhigo ma istaahilo waay maxaa gabadha masaakiinta maxay galabsatay waxay ahayd gabar doonaysa in familkeeda micnaha ay support garayso oo micnaha maadaama odayna laga yaabaa inuu yahay gabadhii micnaha first born inuu yahay laga yaabaa qofkan waa dishay oo dhibaato saarta u geystay ciddii micnaha income-ka micnaha soo geli jiro ka dhaqaalihii hoos uga dhacay gabadhoodii micnaha inta ay soo kornayeen juhdi ay ku bixiyeen way waayeen maxaa ku dishay waa maxay sababta aad ku dishay maxay galabsatay waxaan had iyo jeer kusoo celinaya cadaalad wax loo baahan yahay hooyadaas iyo aabahaas cadaalad u baahan yihiin Soomaalida qofka micnaha hadduu qofka wax dilay uu yahay adeerka hadduu yahay abtiga hadduu yahay aabaha waxaan kaa codsanayaa inaad qofkaas soo qabto intaad aan sheego qofka noocaas ma istaahilo waa arxan laabe dulma badan oo dulmi geystay waa qof micnaha diinta ay farayso in micnaha qofkaas la dilo xitaa in xabsi la geeyo mun qof noocaas qabta daawadayaan aad u mahadsantiin sida wanaagsan barnaamijka qabataan waan jeclaan lahaa inaan muuqaalka aan sii wado laakiin ma sii wadi karin maadaama waxaan dareemayaa qiiro aad u fara badan ma awoodo in muuqaalkan aan sii wado marka هذا ما سنتين مقارنة شاقرية سمعنا وقارو خويضا أباني عبد الغرام هذا ما سنتين سعدي عبد الكريم waxay ahayd gabar baariya waxay ahayd gabar aan aad ugu soo dhibtooday waxay ahayd gabar aan dhibkii inay iga fayday intii markay kortay oo ku soo dhibtooday ximin weyn ay gooday markay gooday kuma dhiman sariirteedii kuma dhiman hargab iyo karoone waxay u dhimatay nin ka gardaran oo dawladnimo sheeganaya oo baabuur tignika wata aase xaq darraa wuxuu ugu dilay iyadoo socodkeeda ku jirto shaqadeeda soo gudatay waxaan ilaahay ka baryahayaa oon ilaahay weydiisanayaa in ilaahay ii soo ifiyo waxaan bulshada Soomaaliyeed ka codsanayaa iyo intii taqaana ninkaas gabadhayda sida xaq darrada ku dilay inay ilaahay ugu dhawaadaan inay ii soo keenaan